iyada oo ay la xidhiidho dadaalka loogu jiro baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada ayuu midowga isbahaysiga badbaado qaran ee BSN waxay socdaallo ugu ambabaxeen gobollada ku yaala waqooyiga dalka Djibouti waxayna socdaalkaasi ku soo mareen kuna soo booqdeen gobolka Tojora iyo gobolka Ubuk waxaana hogaaminayay wafdigaasi madaxda midowga BSN maalintii Jimcihii 25 bishan Abriil 2025 wuxuu wafdigu ka degay magaalada cad ee loo yaqaano La Ville Blanche ee gobolka Tojora wafdigu magaalada ayuu socod ku soo maray iyaga oo si fiican loogu soo dhaweeyay halkaasi wuxuuna wafdigu si guud iyo si gaaraba kulamo ula yeeshay bulshada reer Tojora kadib wuxuu wafdigu ku qabtay magaalada shir uu bulshada ugu soo bandhigay fariinta iyo barnaamijka uu xambaarsan yahay midowga isbahaysiga badbaado qaran ee BSN sidoo kale maalintii Sabtidii 26 bishan Abriil 2025 waxay wufuudda BSN u soo boqoleen dhanka iyo gobolka Ubuk wuxuuna wafdigu jaanta dhex mariyay magaala madaxda gobolkaasi ee Ubuk ee loo yaqaano Xayu waxaanu si dhow isku wareysteen bulshada ku nool gobolkaasi Ubuk kadib waxay ku qabteen shir ay uga xog warameen bulshada himilada iyo rajada uu u sido midowga isbahaysiga badbaado qaran ee BSN runtii wuxuu ahaa socdaalkaasi hawleed midmira dhal oo gaaray hadafkii iyo ujeedadii laga lahaa oo ahayd xoojinta iyo kor u qaadista istaageersiga iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa bulshada iyo midowga isbahaysiga isbeddeldoonka ee badbaado qaran oo loo yaqaano BSN Bye.